sida la wada ogyahay shirkii ka dhacay caasimadda Jarmalka ee Berlin 15 November 1883 January 1885 kaasoo ay hogaamiyaasha reer Yurub ku qaybsadeen Afrika oo midba saami uu qaatay boqorkii Abyssinia ee Mililigna waxa uu kamid ahaa uu shirkaas ka qayb galay isagoo oo sheegay inuusan daawado ka ahaanaynin qaybsiga qaaradii uu dalkiisu kamid ahaa shirkaas Berlin oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed 5 meelood lagu kala qaybiyay muddadii ka horeysay ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd ummad midaysan oo aan lahayn xuduudo isticmaar dhigay waxaana xukumi jiray imaarada Islaami ah iyo madax dhaqameedyo arumaha imaaradahaasi waxa ugu muhiimsanaa magaalada Harar oo Mililig uu xoog ku qabsaday January 1887 isagoo ay garab siinayaan quwadihii reer Yurub Talyaaniguba ha ugu horeeyay Abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed oo doodaan loo yaqaanay gabay uu tiriyay 1960 waxa kamid ahaa meerisadan uu kaga hadlay kala qaybintii reer Yurub ay Soomaalida ku sameeyeen wuxuu yiri Soomaali oo gamaasan baabari la iib geystay guri bay lahayd oo shanba looga kala gooyay intii caynka lagu giijiyaa gurada loo fuulay markaasa gadqaadkii la baray waana lagu guuray iyadoo dameer gaaban iyo awr garbaala moodo gooyaha intay fiirisay calan u geeraartay rabbina wuu gargaaray oo laba gooyay dabarkii dhulka Soomaali galbeed oo kamid ahaa qaybihii uu saamiga u heelay Ingiriisku hase yeeshee uu sheeda uun ka ilaashan jiray marka laga reebo dhowr iyo 10 sano oo uu military ahaan ku joogay wuxuu Ingiriisku kula galay xabashada heshiisyo xilliyo kala duwan dhacay oo uu ugu ballan qaaday inuu ku wareejin doono dhulka Soomaalida heshiiska ugu horeeyay ee dhaxmaray Ingiriiska iyo xabashada kuna saabsanaa dhulka wareejintu waxa uu dhacay 14 May 1897 waa 10 sano kadib qabsashadii magaalada Harar heshiiskani waxa uu saxiixay Ingiriiska qunsulkii gooda u joogay Qaahira James Renald Road dhanka xabashadana waxa uu saxiixay Mililig bixinta dhulkan Soomaaliyeed ee ogaadeen loo yaqaano oo Ingiriisku bixiyay ee uu siiyay xabashada iyo ujeedooyinkii ku gadaamana waraaga weyn ee reer Masar Dr. Falayfal oo buugiisa mushkilatu ogaadeen qoray waxa uu yiri sida si loo hirgeliyo hadafka istiraatiijiyadeed ee Ingiriiska ee ku aadan qabsashada biyaha webiga Niil iyo in laga ilaaliyo webigan ama qayb kamid ah qabsashadiisa dawlad kasta oo Yurub ah oo xoog leh saaxiibna aan lahayn Ingiriiska wuxuu Ingiriisku qaniimo ahaan u siiyay xabashada dhulka ogaadeenaya wuxuuna aqoonsaday rasmi ahaan inay u dhex joogto ujeedada Ingiriiskuna waxay ahayd inuu xabashada ku qanciyo inay joojiso garabsiinta Faransiiska oo doonayay inuu qabsado webiga Niil dhanka kale Ingiriisku wuxuu ku kadiyay oo uu boqorka xabashada u sheegay inuu garab taagan yahay oo cadawgiisa Soomaaliyeed uga heelin doono arrinka ballanqaadka ah ee Ingiriisku wuxuu si buuxda u waafaqay doonistii iyo aragtida Mililig hadaba Mililig waxa uu cadaatay bartamihii May 1897 Ronald Road hadafkiisa ugu weyn inuu yahay webiga Niilka uusan ahayn dhulka Soomaalida wuxuuna Mililig si degdeg ah u sheegay mahdigii Suudaan iyo taageerayaashiisu inay yihiin cadawga boqortooyada Abyssinia masaalixda istiraatiijiyadeed ee Ingiriiska sida aad ogaatay bay uga hortimid masaalixda shacabka Soomaaliyeed ee ogaadeen oo korkiisa lagu go'aamiyay aayihiisa isagoo aan waxba laga weydiinin waxa arrinkaasi ka shaqeeyay ay ahaayeen dawladda Yurub oo sheegtay inay shacabka ilaalinayso iyo dawladda Amxaara oo doonaysay qaadashada dhulkiisa intaas ayuu ka qoray faalladaas Ingiriisku waxa uu khiyaameeyay markii uu Mililig heshiiskan la galay odaya Soomaaliyeed oo hore heshiis ay kula saxiixdeen kuna saabsanaa Ingiriisku inuu ilaaliyo iyaga iyo dhulkoodaba iyaguna ayna u ogolaanaynin shisheeye kale inuu dhulkooda yimaado sidaa awgeed baana loogu magacaabay heshiiskii khiyaanada heshiiska Abyssinia loogu ballan qaaday in dhulka Soomaaliyeed lagu wareejin doono ee soo bilowday 1897 waxa dib loo cusbooneeyay 1944 iyo 1954 oo dhul qayb mar in lagu wareejiyay waraaga reer Masar oo gudubtii Ingiriisku ka galay dadka Soomaaliyeed ka qoray buugiisa mushkilatu ogaadeen waxa uu hadalkiisa u dhigay sida tan Ingiriisku wuxuu inkiray masaalixda shacabka Soomaaliyeed iyo midnimadii uu ku taameeyay inuu hantiyo wuxuuna Hayle Salaase la galay 1944 heshiis Itoobiya lagu gacan gelinayo dhulka ogaadeenaya maamulkii militariga Ingiriiskuna uu sii maamulaya qaybihii uu ku magacaabay Howd and Reserve Area 10 sano kadibna uu Itoobiya uga tanaasulayo sanadkii 1954 Ingiriisku waxa uu Itoobiya la galay heshiis labaad oo guud ahaan ogaadeen loogu dhiibay Hayle Salaase iyo xukuumaddiisa inkasta oo Ingiriisku uu damcay 1946 inuu jabiyo heshiisyadii isaga iyo xabashadii dhaxmaray 1897 iyo 1947 oo uu mideeyo dadkii Soomaaliyeed ee la kala qoqobay haddana damacaasi uma suurtagelin oo quwadihii waaweynaba is hortaagay sida aad qoraalada dambe ka arki doontaan is-hortaagaasi kadib isaguna xabashadii ayuu u fuliyay heshiisyadii qarsoodiga ahaa ee soo bilowday 1897 oo ku kala wareejiyay 1948 iyo 1954 dhulka Soomaaliyeed ee xilligaas ugu ballan qaaday
qaaday u gacangelinta. Jaamac Maxamed Qaalib oo jenaraal ka ahaa dowladii Soomaaliya ahaana khabiir xogaal u ahaa arrimahan mar aan Muqdisho kula kulmay ayuu yiri qoraaga buugan oo hadiyadii siiyay buugiisa taariikhda Soomaalida waxaan ka codsaday xogaha ku qoran ee la xiriira lu wareejinta inaan ka soo xigto una iga aqbalay. Waxaan ka soo xigtay buugiisa buugo kala duwan qoraalkan ku saabsan qorshihii Beefin iyo wareejintii dhulka Soomaaliyeed wuxuuna u dhigay sida tan. Beefin wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska wuxuu soo jeediyay 1946 in dhulka Soomaaliyeed oo dhan wasaayada qaramada midoobay la geliyo oo isagu maamulo maadaama uu markaasi gacanta ku wada hayay dhulkii Soomaaliyeed oo dhan Jabuuti mooyee. Soomaali weyn midaynteeda waxa ugu horreyn soo jeediyay naadigii dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Club SYC oo la aasaasay 15 May 1943 loona bedelay ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth League. sanad guuradiisii afraad oo ku aadanayd May 15 1947 sano ka hor soo jeedintii wasiirka Ingiriiska uu soo jeediyay taa hore ayuu tixraacay oo wuxuu ka turjumayay rabitaanka Soomaaliyeed. Culayskaas xornimadoonkii Soomaaliyeed ee maamuladii Ingiriisku sii gudbiyeen iyo waliba warbixintii saraakiishii militariga ee Ingiriiska uuna ka mid ahaa General Cunningham ee dhulka qabtay oo yiri dhulkan dadweyne aan Soomaali ahayn kuma noola ayaa sababtay soo jeedintii dawladda Ingiriiska. run ahaan hindisihaasi midaynta Soomaalidu inkasta oo loogu magac daray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska loona bixiyay Beefin Balan wuxuu ka yimid wasaaradii dagaalka ee Ingiriiska The British War Office oo ka turjumay bixintii saraakiishida militariga sida aan kor ku soo sheegay kadibna golihii wasiirada Ingiriiska ayaa u dhiibay wasiirkooda arrimaha dibadda. markaas baa Ernest Beefin ka soo jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo loo yaqaan golaha nabadda The Peace Council oo ka koobnaa wasiiradii arrimaha dibadda ee dalalkii ku adkaaday dagaalweynihii labaad ee dunida 1939 ilaa 1945. Ingiriisku waa ogaa in taariikhdii gumaysigu soo afmeermi doonto oo asagaaba dhinac ka ahaa hindisaha Atlantic Charter ee bishii Agoosto 1941 oo ahaa in cid walba xorowdo kadib markii uu dagaalkii waagaasi dhammaaday. kadibna waxa uu noqday hordhicii axdigii qaramada midoobay oo gumaysi cusub Ingiriisku guri weyn kama haynin. soo jeedintii Beefin golihii nabaddu waa uu ku diiday. Mareykanku waxa uu reeyay markaas in dalalkii Talyaanigu gumaysan jiray oo dhan toos loo hoosgeeyo qaramada midoobay oo aan gumaysto kale loo gacan gelinin. inkasta oo siyaasadiisii markii dambe uu bedelay Faransiiska iyo Ruushkuna waa nimankii Itixaadkii Sofiyeeti waxay rabeen koonfurta Soomaaliya in Talyaaniga dib loogu dhiibo. Ruushku muraadkiisu waxa uu ahaa in haddii doorashooyinka Talyaaniga oo markaasi uu soo dhawaa uu ku guulaysto xisbigii Shiiciga ee uu hogaaminayay nin firfircoona oo la oran jiray Taliyoti uu Ruushku Soomaaliya ka dhigan lahaa salaan uu shuuciyada uga gudbiyo Afrika inteeda kale. Faransiiskana laga yaabee inuu Talyaaniga uu taageerayay. markaas kadib dood dhaxmartay dawladihii dagaalweynihii labaad ee dunida ku adkaaday waxaa ka soo baxay in la ogaado rabitaanka dadweynaha dalalka Afrika ee Talyaanigu gumaysan jiray. waxaa la soo diray guddi ballaaran oo soo saameyn doonta baaritaan mug weyn. xubnihii guddigaasi waxay Muqdisho yimaadeen 6 bishii koobaad 1948 waxay gooni ula kulmeen wakiiladii ama madaxdii xisbiyada oo dhan. nasiib darro xisbigii gobonnimadoonka ahaa ee SYL waa diiday inuu taageero hindisihii Ingiriis. SYL ma diidinayn midaynta Soomaalida waxayse diideen in Ingiriiska keligii Soomaali oo dhan loo dhiibo oo uu maamulo. waxay ku adkaysteen xubnihii guddiga SYL in afarta dawladeed ee dagaalweynihii labaad ee dunida ku adkaaday ee loo yaqaan quudaha waaweyn Big Four Powers ama golaha nabadda Peace Council ay Soomaalida wada xukumaan oo 10 sano xornimo ku gaarsiiyaan. kadib markii afartii dawladeed ee ku adkaaday dagaalweynihii labaad ee dunida ku heshiin waayeen sidii laga yeelay dalalkii Afrika ee Talyaanigu gumaysan jiray bay 15 Sebtembar 1948 arrintii Soomaalidu ku wareejiyeen qaramada midoobay UN. arrintii Soomaalida waxaa la hoosgeeyay golihii wasaayada oo aan asagu hoos imaanaynin golaha amniga oo toos ula xiriiri jiray jamciyadda ummadaha midoobay UN General Assembly. 22 November 1949 wuxuu golaha jamciyadda ummadaha midoobay go'aamiyay in koonfurta Soomaaliya la geliyo wasaayad ama amaanadaasina ay haysato UN-ta Talyaanigu uu maamuli doono oo uu 10 sano xornimo ku gaarsiiyo. Ingiriisku kadib markii hindisihiisii la diiday hindisihiisii oo ahaa in Soomaali oo dhan la mideeyo asaguna uu maamulo oo waliba uu diiday xisbigii xornimadoonka ahaa ee SYL wuxuu dib u kala qoqobay qaybihii dhulka Soomaaliyeed ee asagu markaas uu gacanta ku wada hayay. abashida dhulkii Soomaaliyeed oo uu horay u siiyay buu qaar ku wareejiyay dhinacay sheegtaanba horuu ka saaray wuuna iskaga soo baxay ka hor intuuna dalka ku wareejin Talyaaniga. tusaale boqorkii Talyaanigu 1934 marbuu Soomaaliya booqday dalka intiisa badanna wuu maray. 7 November ee sanadkaasi wuxuu booqday Mustaxiil oo Hiiraan
hiiraan ka tirsanayd oo beledweyne hoos imaan jirtay una jirtay 100 kilomitir. xabashidu 60 kilomitir bay soo dhaaftay mustaxiil oo soo degtay feerfeer. dhinaca bakool, dagaalweynihii labaad ee dunida ka hor, ilaalada Talyaanigu waxay fadhiyi jireen ceel qoran oo 30 ilaa 40 kilomitir ka shishaysa qurac joome oo xuduudda ku sheegu uu hadda maro. dhinaca mudug, ilaalada Talyaaniga iyo xabashidu waxay isku hor fadhiyi jireen ceelka walwaal oo gaalkacyo u jira 250 kilomitir. dagaalkii labada dalna waaba uu ka qarxay walwaal gudaheeda. xabashidu waxay markii dambe soo degtay dhudub oo gaalkacyo u jirta 83 kilomitir. Talyaanigu markii uu dib ugu soo noqday Soomaaliya ma doonaynin inuu xabashida ka soo celiyo dhulkaasi ay ku soo durugtay, oo wuxuu kaga raali gelinayay inay xabashidu qabsato dhul kale oo Soomaaliyeed. duulimaadkii uu ka duulay 1935 ilaa 1936 kuna qabsaday dalkeeda oo dhan. hogaamiyihii hore ee ururka gobonnimadoonka soo noqday taariikh ahaan haatanna ah urur siyaasi ah oo Itoobiya isku dhiibay ONLF, Sheekh Ibraahim Cabdalla Maax oo ahaa qoraal sare, wuxuu isna buugiisa Tuhfatul Awfiyaa boqol 247 ku qoray khulaasada xogta uu qoray soo xiganay buuga Generaal Maxamed Jaamac Qaalib. sidaan hore u soo sheegnay, Ingiriiska damciisii ahaa midaynta ummadda Soomaaliyeed markii ay hor taageen quwadihii waaweynaa ururka Israa'iilna uu taageeri waayay hindisahaasi, wuxuu go'aansaday inuu fuliyo heshiiskii qarsoodiga ahaa ee khiyaanadana ku dhisnaa ee dhex maray labada dal ee Itoobiya iyo Ingiriiska 1897 iyo heshiisyadii ka dambeeyay ee 1944 kuwaasoo qeexayay in qaybta hore ee dhulkan lagu wareejiyo Itoobiya 1948. kadib 23 Sebtembar 1948 Ingiriisku wuxuu ku wareejiyay xabashada dhulkii Soomaalida badankii. markii uu dhacay heshiiskii dhulka lagu wareejinayo, waxaa magaalada Jigjiga ka dhacay kacdoon lagu diidanaa dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya loo gacan geliyay. waxaa hormuud ka ahaa kacdoonkaasi ururkii Israel laantiisa Jigjiga. maalintaasi waxaa lagu xasuuqay magaalada Jigjiga 25 qof oo aan hubaysnayn oo ahaa xubnihii Israel. dhulku wareejinta xabashida ee hore 6 sano 2 bilood iyo 6 maalmood kadib oo ahayd 29 November 1954 Ingiriisku wuxuu heshiiskii u dambeeyay la galay xabashida, wuxuuna ku wareejiyay heshiiskani dhulkii uu horay u reebtay oo uu ku magacaabay Howd and Reserve Area, aaga gaydka ah. Ingiriiska British Military Administration wuxuu baneeyay gabi ahaanba dhulkaasi 28 Febraayo 1955. hindisihii wasiirka arrimaha dibadda Ingiriisku kolkii ay hor istaageen dowladihii waaweynaa ee kale, ayuu go'aansaday kala qaybinta Soomaalida oo dhulka Soomaali galbeed xabashida uu ku kala wareejiyay 1948 iyo 1954. hogaamiyihii hore ee ONLF, Sheekh Ibraahim Cabdalla Maax, sidaan horeyba u soo sheegay, wuxuu ka qoray arrintaasi kitaabkiisa la yiraahdo Tuhfatul Awfiyaa boqol 247. sidoo kalena kitaabkiisa kale ee la yiraahdo Al-Mawsuucatul Muyassara fi Taariikh al-Islaami oo ka hadlaysa taariikhdii dowladihii Islaamka. sidan ayuu uga hadlay wareejintii xabashida ee dhulka Soomaali galbeed iyo dhiibitaankiisiba. waxa uu sheekhu yiri, ciidamadii Ingiriisku way ka baxeen Soomaali galbeed iyagoo uga tagay xabashida quud macaan badan, wuxuuna daba socday ka bixitaankaasi heshiis dhex maray xabashida iyo Ingiriiska. dabadeed ciidamadii xabashidu waxay soo galeen Soomaali galbeed, waxayna ku dareen dhulka xabashida. qaramada midoobayna wax falcelina ma ayna ka samaynin habdhaqankaas. xabashidu way sii waday macangegnimada iyo dulmiga ay ka geysanayeen Soomaali galbeed, Ogaadeeniya iyo Harar. waxayna adeegsadeen tub kasta oo ay ku dhibaateyn kareen muslimiinta sida dilka, xidhayga iyo ciqaab kaleba. boqorkii xabashida Hayle Salaase wuxuu gudo galay si cadna ugu dhawaaqay cadaawadda uu Islaamka u hayo. sidoo kalena wuxuu ka shaqeeyay sidii uu u qabsan lahaa dhulka Soomaaliyeed qaybtii uu Talyaanigu gumaysanayay. markuu Ingiriiska dhulka bixinayo, jabhada hubaysan ma jirin, waxaase jiray oo Soomaali galbeed xafiisyo badan ku lahaa ururkii Israel oo ahaa xisbi qalin ku halgamaya, dadweynahana wacyigelin waafi ah oo gobonnimadoonnimo sii jiray. xabashida kolkii lagu wareejiyay dhulka ama sii furnaan karin xafiisyo xornimadoon. tusaale intii aan xog ka hayo, magaalada Qabri Dahre oo ka mid ahayd dhulkii la bixiyay 1948 ahaydna xaruntii British Military Administration in Ogaden, Cabdi Daahir Faarax Gaas oo madax ka ah xisbiga Israel ee magaaladani waxa uu u wareegay isagii iyo reerkiisa magaalada Awaare oo ka mid ahayd dhulkii Ingiriisku Howd and Reserve Area ku magacaabay. markii Awaare la bixiyay 1954 Cabdi Daahir haddana waxa uu u wareegay magaalada Hargeysa oo howlaha xisbiga Israel ku waday. goobaha kale ee xafiisyadu ka firnaayeen inay la mid ahaayeen baan filaya. sidaan horey u soo sheegay, dhulka Soomaalida Ingiriisku wuxuu ku kala wareejiyay Itoobiya 48 iyo 44 sanadka hore oo dhulka badankii la bixiyay Ingiriisku wax faahfaahin ah muunan ka bixin. Soomaalidiina waxayna ku heeseen waxaan nahay duul la kala iibsaday oon laba ogeysiin. dhulkoodii in la keenay askar Itoobiyaan ah oo waa kii Jigjiga kacdoonka ay ka sameeyeen looga soo horjeeday Itoobiya dhulkoodii in lagu wareejiyo. Garaad Makhtal Daahir oo dhowr rin ay weheliyaan wuxuu habeenka weerar ku qaaday ciidankii Itoobiya ee Jigjiga saldhigga ka samaystay 1948. haddaba markii la soo gaadhay 1954 ayaa
ayaa macallimiin uu ku jiray Cumar Carte Qaalib oo wax ka dhigi jiray dugsiyadii magaalada Sheekh waxay ka codsadeen maamulihii Ingiriiska ee halka joogay inay soo bartaan dhulkooda lagu magacaabay Howd and Reserve Area. waa loo ogolaaday oo baabuur baa la siiyay ay ku soo maraan dhulkaas. waxay soo mareen dhul badan oo ay ka mid ahaayeen Walwaal, Wardheer, Abridahare, Dhagaxbuur, Milmil iyo Awaare. barayaashii markii ay ku laabteen Hargeysa ayaa maamulkii Ingiriisku wuxuu ka dalbaday inay soo qoraan warbixin ay kaga warbixinayaan dhulka ay tageen. haddaba markii ay qoreen warbixinta ku saabsan dhulkii ay tageen iyo sidii loogu soo dhaweeyay ayaa waxay ku soo gunaanadeen 3 su'aalood oo u dhigan sidan: dawladda Ingiriisku maxay dugsiyo uga dhisi weyday dhulkii aanu soo marnay intii ay kolba dhowr wiil Dhagaxbuur, Awaare iyo magaalooyinka la midihii intay ka soo qaado ay Sheekh ama Boorama geynayso? waxaan soo aragnay saraakiil iyo askari Itoobiyaan ah ee maxay ka qabanayeen halkaas leen waa dalkanagiye. maxaad ula jeedaan Serford Area muxuu yahay ereyga Serford ama Kayd? barasaabkii dawladda isticmaarka wakiilka uga ahaa Somaliland kolkii loo geeyay warbixintii barayaasha markiiba London buu la xidhiidhay waxayna u sheegeen su'aalihii barayaashu ku soo khatimeen warbixintoodii. isla markiiba dawladda Ingiriisku way ka soo jawaabtay waxayna tiri u sheega waxa la gaaray waqtigii ay waajibka noqotay in loo sheego Soomaalidu inuu jiray heshiis qarsoodi ahaa oo u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Itoobiya lana kala siixday 1944 kaasoo tixraacay heshiis kale oo la kala siixday 1897 waxaana ku wareejinay dhulka Itoobiya ee sida ula socda. jawaabtan dawladda Ingiriiska ee London ka timi waxaa Hargeysa kaga dhawaaqay 28 Febraayo 1955 isla barasaabkii Ingiriiska ee su'aalahaasi loo gudbiyay. sanadkii 1897 oo ahaa sanadkii uu soo bilowday heshiisyadii kala dambeeyay ee labada isticmaar Ingiriiska iyo Itoobiya dhexmaray wuxuu ku suntan yahay sanadku khiyaamay Ingiriisku Soomaalida. aqoonyahaankii reer Suudaan Professor Xasan Maki oo ahaa maamulihii hore ee jaamacadda caalamiga ee Afrika kitaabkiisa la yiraahdo As-Siyaasatu Thaqaafiyya fi Soomaali al-Kabiir markuu kaga hadlayay arrintaasi wuxuu hadalka u dhigay sida sanadkii 1897 ummadda Soomaaliyeed waxay u aqoonsatay inuu ahaa sanadkii khiyaanada iyo murugada sababtoo ah waxaa bixiyay dhulkii Soomaaliyeed cid aan markii horeba maamulkiisa lahayn waa Ingiriiska wuxuuna siiyay cid aan mutaysanin laayiqna u ahayn waa Itoobiya.